Daawashada filimaanta xunxun waxay shaqeysaa xididdada maskaxda kadibna xididdadu way dhintaan, taasina qofka waxay u keeni kartaa caafimaad darro una ka soo waaqsan karin. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal. Waa mar kale muuqaal kaloo xiiso leh kaasoon kaga hadli doono dhibaatada caafimaad ay leeyihiin daawashada filimaanta xunxun. Cilmi baadhis ay sameysay Jaamacadda University of Cambridge dabeeqadii 2013 ayaa waxay soo bandhigtay dhibaatada caafimaad ay leedahay daawashada filimaanta xunxun, gaar ahaan dhibaatada ay filimaantaasi ku keeni karaan maskaxda qofka. Waxayna cilmi baadhis oo daaha qaaday arrimahan soo socda. Daawashada filimaanta xunxun waxay maskaxda u waxyeeleeyaan sida maandooriyuhu u waxyeeleeyo maskaxda marka uu qofku cabo ama uu cuno. Daawashada filimaanta xunxun waxay waxyeeleeyaan maskaxda qaybteeda qaabilsan hogaaminta ee ku taalla maskaxda qaybta sare ee loo yaqaan fooda. Taasina waxay sababtaa in qofka garaadkiisu wax u dhimo, caad iyo madoobaad fuula indhaha iyo qalbiga. Sidoo kale waxaa markasta sii yaraada xasuusta iyo xifdinta maskaxaaneed ee qofka ilaa heer uu gaadho inaysan maskaxdiisu waxba xasuusan, indhuhuna noqdaan kuwo madoobaad saaran yahay halka qalbiguna noqdo mid qallalan. Xanuunada ugu khatarsan ee laga qaado daawashada filimaanta xunxun: murugo iyo walbahaar joogto ah, ilowshiyo badan, dareenka jidhka oo yaraada, difaaca jidh ahaaneed oo dhinta. Daawashada filimaanta xunxun waxay shaqeysaa xididdada maskaxda kadibna xididdadu way dhintaan, taasina qofka waxay u keeni kartaa caafimaad darro una ka soo waaqsan karin. Ugu dambeyn, daraasaddan ayaa si weyn uga digtay arrintan in lagu dhaqmo, iyadoo ku tilmaantay khatar saameynna ku yeelan karta mustaqbalka iyo inuu qofku ku fashilmo. Haddaba, si aynu noogu dhicin Ilaahu ka badbaadi qof kasta oo Muslim ah ee laga qaado daawashada filimaanta xunxun ama eegitaanka, ayaabuu Ilaahay Qur'aankiisa ku tilmaamay 1443 sano ka hor. Si aynu iskaga ilaalino ayuu Ilaahay Qur'aankiisa inoogu sheegay, wuxuuna na faray inaan indhaheena laabanno. Wuxuu Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ina leeyahay: ويحفظوا حفظيين فروجهم فرجيالكم ذا حفظيين ذلك كان وحوش يقولون إنها إلا الله بفروجنا لحفظيا أي أزكى طير نمبر لهم إيرغو طير نمبر إن الله على الخبير ملكي أغاشب ضوء بما يصنعون واحد صنعيليا. sidoo kale wuxuu Ilaahay inoogu tibaaxay: وكل حمل الذي يريد مؤمنات قبلها مؤمنات كواحد بصير هذا اغضضنا لا بعيده يغضضن هلا بينه من أبصارهم أرجيال كود حلابين ويحفظن حفظيين فروجهن فرجيال كود حفظيين. kastoo Ilaahay ina faray waxay noogu jirtaa faa'iido badan, wax kastoo Ilaahay naga reebayna waxaa ku jirta dhibaatooyin badan. Waa maxay haddaba sababta loo sameeyay filimada? Sababta loo sameeyay ayaa ah in garaadkaaga lagu maamulo oo lagu qabsado. Haddii aad isweydiiso sidee loogu qabsanayaa, waxaa addoon lagaaga dhigayaa xiisahaaga iyo rabitaanka naftaada, waxaana kugu adkaanaysaa inaad go'aan qaadato. Waxaad noqonaysaa sida balwadayaasha qaylo oo kale ee habeenkii markay seexanayaan go'aanka qaata, markay subaxii toosaana qaadka raadsada. Qof aan xiisaha iyo rabitaanka naftiisa horjoogsan karinna cadow kusoo duulayna iskama dhicin karo, dib loo geystayna kama aarsan karo, oo damiirkii ayaa dhintay. Casrigan aynu maanta nool nahayna waxaa batay fisqigii iyo xumaanihii, iyadoo arrintan gaaladu uga dan leeyihiin in dadka muslimiinta ah ay diintooda kaga leexiyaan, oo dhalinyarada muslimiintuna noqdaan kuwo hawadooda maamusho, aan ku fikirin inay iska kor qaadaan heeryada gumaysiga. Abwaan Hadraawi waa kii lahaa markuu arrintan ka hadlayay: shil baa dunidii ka dhacay, daacuun halis ah ku fiday, duufaan simi baa la tegay, doofaarada aan gudnayn, diinlaawaha gaalku dhalay. Maxay dulin faafiyeen, maxay sama duudsiyeen, maxay godob daaqsadeen, maxay dembi xoogsadeen, maxay dabar soo xardheen.
Faafinta xumaantu waa qorshe u yaalla reer galbeedka sidii akhlaaqda iyo dhaqanka suuban uga suulin lahaayeen shucuubta caalamka, siiba Muslimiinta. Filimaanta af Soomaaliga lagu turjumay waxaa laga bartaa wax kasta oo diinta ku liddi ah. Ugu dambeyntii, waa in lagu baraarugaa dhibaatada diineed iyo dhaqameed ay leeyihiin filimaanta lagu afceliyay af Soomaaliga. Liibaanta dhammaanteed waa qofka oo naftiisa xakameeya, xumaan oo dhammina waa isagoo naftiisa sii daaya. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalka la isaar. Sidoo kale, haddaad nagu cusub tahay, subscribe saar. Wassalaamu calaykum.